بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن صاحب بيال ميل البوات شوكتاني سول بوسارك مقالكي ودين سو غاري وسعيدكين فؤاد عبد الرزاق غوري سومالي سبوت يا naga daawaneysaan waxaad ku soo dhawaataan warbixin kooban oo uga hadlayno xaaladda Cristiano Ronaldo iyo kooxda kubadda cagta ee Manchester United kadib kooxda Manchester United xalay markii ay markaa isaga hartay gebi ahaanba amaba laga cirib tiray koobka Champions League dadaalkii iyo markaa fursadii ugu soo bixi lahayd wareegga sideedamaadka ee koobkanna ay u diiday kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ee ka ciyaarta horyaalka liga dalka Spain waxaan eegi doonaa xaalka ugu dambeeya mustaqbalka xidigan miyuu tagaya kooxda mu ka tagaya haddii Champions League ay u soo bixi weyso waxyaabahaas oo dhan ayaan isla fiirin doonaa iyo aragtida ku aadan Cristiano Ronaldo ee halka uu ka joogo Manchester United weeraryahan ay soo qaadanaysaa bal intaas oo dhan ayaan isla fiirin doonaa iyo sida markaa xidiga laga yaabo in mustaqbalkiisa uu u maareeyo marka laga hadlayo Manchester United Cristiano Ronaldo tan iyo waagii uu kooxda kubadda cagta Manchester United ku soo biiray uu dib ugu soo noqday ee uu isaga soo tagay kooxda kubadda cagta ee Juventus sanadkii ama xagaagii hadda dhawaa waxaa hadalhayn badan soo baxaysay xidiga in kooxda Manchester United aanu ku sii nagaan karin mustaqbal dambe ilaa ama aanu markaa waayihiisa kubadda cagta ku soo gabagabayn karin sabab la xiriira xidiga iyo sida markaa uu rabo iyo in Manchester United aanay intaas oo dhan u sameyn karin waa hadalhaynta ugu badnayd xalay waxaa laga soo reebay kooxda Manchester United koobka Champions League ay ka tirsanayd isla markaana wareegiisa 16aad ay la ciyaaraysay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid haddaba Manchester xaalkeeda halkuu maraya waxaan fiirin doonaa saaxiibayaal in Manchester United waxaan shaki ku jirin in kooxda kubadda cagta Manchester United ay haatanba suuqa ugu jirto inay hesho sidii ay u soo qaadan lahayd weeraryahan da'yar oo kooxda xilli ciyaareedka dambe markaa la falgala sidoo kale Cristiano Ronaldo arrinta aad buu u og yahay wax dhibaato ah inaanu ku qabin ayaa la sheegay arrinkaas sababtoo ah wuu og yahay baa la leeyahay ugu dambeyn in aanu kulamo badan ciyaari karin xidigan saadaradeedna uu u baahan yahay amaba maaragtay kooxda Manchester United ay u baahan tahay nin backup oo kulamadaas markaa la ciyaaro kulamada qaarkood oo la qaybsan isla markaana tartan la geli kara isaguna waa uu markaa og yahay baa la yidhi arrinkaas saadaradeed wax walwala iyo dhibaato kuma haysa in arrinka Manchester United ee ku aadan suuqa inay ku jirto weeraryahan soo qaadanayso Cristiano Ronaldo waxa hadda dhibaato kuma qaba ayaa la leeyahay wahagaag arrinta kale Manchester United koobka Champions League oo laga soo reebay xilli ciyaareedka dambe maaragtay fursadii ay ugu soo bixi lahayd calaamad su'aal aad u weyn oo dul saaran marka laga hadlayo kooxda iyo booska afraad oo dagaal adag uu ku jiro Arsenal fursadda ay haysato marka la fiiriyo Manchester United waa uga fursad badan tahay booskan hadda ayada fadhido ilaa 3 kulan oo 9 dhibcood natiijaha ku xisaabsanna waa ay u harsayin walow kulan ay caawa la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee Liverpool kaas oo markaa wax walbaba ay ku xiran yihiin haddii ay badiso kulankan natiijada ama dhibcaha farqiga booska afraad ay ku fadhido way sii fogeysanaysaa Arsenal haddaba Manchester United haddii Cristiano Ronaldo iyo kooxdan markaa ay u suurtageli weysay inay u soo baxaan Champions League miyaa laga yaabaa inuu ka tago su'aal markaa dad badan ayaa isu weydiinayaan waxay ku xiran tahay xidiga badan oo Manchester United jooga oo Cristiano Ronaldo qayb ka yahay kuwa haatan amaah uga maqan Donny van der Beek iyo sidoo kale Martial iyo xidigaha amaahda ku maqan oo dhan waxay fiirin doonaan qorshaha iyo falsafada macalinka xiga Rangnick ee maaragtay imanaya Manchester United kulli macalinka ku meel gaara ma sii hayn doono kooxda Manchester United muddo aad u fog waayo wuxuu ku eegay qandaraaska lala galay macalinnimada maaragtay xagaaga xagaaga wixii ka dambeeya Manchester United waxay ku qasban tahay in macallin keensato macallinka markuu yimaadana qorshaha iyo falsafada uu garoonka ku soo galo ayuun bay ku xirnaan kartaa ama maaragtay uu kooxda u soo bandhigo ayuun bay ku xirnaan kartaa xidigaha maqan amaahda ku maqan iyo xidigaha jooga Manchester United Cristiano Ronaldo Paul Pogba Bruno Fernandes iyo kulli xidigahaas oo dhan markaa waxay ku xirnaan doontaa falsafada macallinkaasi imanaya marka iyadana wax saameeya inaanay ku yeelan doonin mustaqbalka Cristiano Ronaldo ee garoonka Old Trafford ayaa la sheegayaa waayo haddii kooxdu markaa dadaal bay ku jiraan isaga laftigiisa uu ku celceliyo dadaalkeen waa inaan maaragtay Champions League kooxda u soo baxday xilli ciyaareedka dambe qaybna uga noqoto tartanka
horyaalka Premier League Ingiriiska loo guulsanay xil ciyaareedka xiga wax walba marka hadda ma kala cadaan karaan ilaa laga gaaro suuqa xagaaga marka uu furmo markaas oo kooxduna ay macallin cusub yeelanayso Cristiano Ronaldo iyo xidigaha la midka ah ama Manchester United jooga haatan amaba kooxda amaah uga maqanba ay noqon doonaan kuwa markaa falsafadii macallinkaas u yimaado kuwa markaa indhaha ku haya isla markaana maaragtay qiimeeya lana socda waxyaabaha isweydiinaysan saaxib waxaa ka mid ah ninkan maaragtay kulamadii ugu dambeeyey labadii kulan ee hadda ugu dambeeyey hadday noqon lahayd kulankii xalay iyo kulankii 3 leeg dhaliyay kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur xoogaha heer ciyaareedkiisa waa uu ka duwanaa maxaa keeni kara waa ku qasban yahay sababtoo wuxuu u baahan yahay inuu boos joogta helo kooxdan guulo ula gaaro marka mar walbaba in dadaalkiisa uu laabo Cristiano Ronaldo waa waxa uu markaa Manchester United u yimid Manchester United u joogo haddaba marka saaxiibayaal haddii ay noqonayso Cristiano Ronaldo mustaqbalkiisa guud ahaan garoonka Old Trafford iyo Manchester United waxay u egtahay hadda in wax walbaba ay qabooban yihiin saameyn aan ku yeelanaynin joogitaanka CR7ka garoonka Old Trafford reebitaankii xalay kooxdiisa laga soo reebay Champions League wareegga 8-maadka marka xalay loogu soo gudbay marka xalay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ay garoonka Old Trafford inta timid goal iyo waxbana kaga adkaatay marka kulankii horena marka uu ku soo dhamaaday goal iyo goal one double treble saaxiibayaal Ronaldo misleedihiin waxa uu marka haatan ku jira xilli ama ay tahay inuu isaga tago guud ahaan kooxda kubadda cagta Manchester United ama se waxa waaye waxaad leedihiin kooxda waa inuu u samro maaragtay uu sii joogo kooxda guulo badanna marka uu la gaari karaa sidaa daraadeed meelna yaan uga dhaqaaqin kooxda miyaad leedihiin aragtidiina maaragtay qaybta commentary noogu reeba haddii aad leedihiin Ronaldo waxay tahay in maaragtay meel halkan ka wanaagsan inuu aado yaad leedihiin wuu aadi karaa oo maaragtay guulo waaweyn waa uu la gaari karaa iyadna aragtidiina qaybta commentary noogu reeba saaxiibayaal waa idinkaga mahad celinayna sida wanaagsan mar walba noogu xiran tihiin waxaan idinka codsanaynaa oo idinku celinaynaa mar walba in muuqaalkan share garaysaan la wadaagtaan asxaabtiina si dad badan oo qiimo leh sida adigu kale ay noogu soo xirmaan adinkana xirnaanshaha noogu xirantihiin waa idinkaga mahad celinaynaa sharaf iyo karaamo ayaan markaa idinkaga haynaa arrinkaasi saaxiibayaal tan iyo kulanti dambe isma dhaafno muuqaalka share gareeya la wadaaga asxaabtiina saaxiibayaal